isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Maxamed Yuusuf Jaamac oo muddooyinkii ugu dambeeyay waday dadaalo lagu horumarinayo adeegyada caafimaad ee gobolka Togdheer una kuurgalayay baahiyaadka ay qabaan dadku ayaa maanta xariga ka jaray laba xanaano oo laga hirgeliyay xaafadaha Balaasa iyo Seylada ee magaalada Burco oo ay baahi weyn u qabeen dadka degan xaafadahaasi waxaana iska kaashaday hirgelinta xanaanooyinkani wasaaradda caafimaadka dawladda hoose ee magaalada Burco bulshada xaafadahaasi iyo qaar ka mid ah hay'adaha ay wada shaqaynta leeyihiin wasaaradda caafimaadka Somaliland ugu horreynba waxa halkaasi ka hadlay isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Maxamed Yuusuf Jaamac isagoo ka warramay hirgelinta labadan xanaano oo si ballaaran uga qayb qaadan doona baahiyaadka caafimaad ee ka jira labadan xaafadood ee Balaasa iyo Seylada goobta aynu ku sugan nahay saaka waa xaafadda Balaasa oo aan ka hirgelinayna xarun caafimaad oo ay iska kaashadeen guddiga xaafadda iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Togdheer iyo hay'adda World Vision markii aan aragnay baahida ay dadku u qabaan xarun caafimaad oo laga hirgeliyo xaafado badan oo magaalada Aatan waxay noo tahay xarunta kooban saaka xariga ka jirno waxaanu kala aadi doonaa xariga ka jirnaa xanaanada dhooban oo ku taala Seylada oo isla iska kaashanayaan wasaaradda caafimaadka dawladda hoose iyo waxa weeyaan World Vision community xaafadda degan xaruntan waxay noqon doontaa xarun ka duwan xarumihii hore waxay noqon doontaa xarun aan kaliya dumarka umulaya la keenin iyo ciyaalka ilaa dadka xanuunsan la keeno xarun ay ka qayb qaataan dhakhaatiirta gobolku ay fadhiistaan oo dadka ku eegaan oo beesha ku eegaan bay noqon doontaa waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inaan caafimaadka gobolka kor u qaadno siday baahiyo kala jiraan xaafad walba siday ugu kala badan yihiin baahida xanaano ama xarun caafimaad inaan u hirgelino insha Allah taala tan waa ay furkiyo noo tahay step koowaad oo qaadnay noo tahay gobolka magaalada gudaheeda waxaan rajaynaynaa inaan halka ka sii anbaqaadno insha Allah taala aan sii horumarino xaruntan ku suganahay waa Dhoobane maanta laga bilaabo xaruntan way furan tahay annagana mas'uuliyadda la wareegno hadday noqoto mushaharka iyo dawada iyo tababarada iyo kirada iyo dhamaantood oo la wareegnay dhinaca kale waxa halkaasi ka hadlay maayir ku-xigeenka degmada Burco Mukhtaar Cabdi Baaryare iyo qaar ka mid ah gudiyada xaafadaha Balaasa iyo Seylada iyagoo mahad celiyay isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr. Maxamed Yuusuf Jaamac iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay hirgelinta iyo furista xanaanooyinkani oo waxtar u leh bulshada Burco maadaama xarun caafimaad xalay ku jirnay iyagana faraya insha Allah taala waxaan ognahay xarunka safmareenka COVID-19 oo inuu soo laba tacleeyay xaaladiisuna ay wadanka ku jirto bulshada degmada waxaan ugu baaqanaa insha Allah taala inay taxadiraan oo ma garanaysaa wax kasta oo laga fogaanayo cudurka ay u feejignaadaan sida wanaagsan ay soo xilqaameen arrintan uga qayb qaateen aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waa mahadsantiin baan leeyahay jazakallahu khayr waxaan runtii u mahadnaqaynaa isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer Dr. Maxamed Yuusuf iyo hay'adda World Vision ee la socota hay'adda World Vision insha Allah xanaanadani waxay ka taageeri doontaa waxyaabaha darbiyaadka ah ay u baahan tahay oo ay kulli u dhow fadhido wasaaradda caafimaadka ka qayb runtii dhismaha xanaanada cusub ee xaafadda Balaasa runtii waxaan ugu mahad celinayaa guddiga xaafadda iyo wasaaradda caafimaadka runtii oo iska kaashaday goobtan caafimaadka ee Dhoobane Health Center waxay furnayd muddo 9 bilood waayo waa meel caafimaad meesha caafimaadkana dadka xaafadda hadday tahay haweenka hadday tahay caruurta aad iyo aad baa loogu baahnaa aynan maanta halkan xaafadda Dhoobane laga furo tubta caafimaadka Cabdirashiid Timir Home Cable TV Burco